galabnimo waxaana wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo waa dunida aad ka joogtaan kusoo dhawaada wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo waxyaabaha ka cusub. Tababaraha kooxda Sporting Ruben Amorim ayaa lagu soo waramayaa inuu heshiis uu la gaaray kooxda Manchester United asigoo u saxiixay heshiis gaaraya ilaa 2027 waxaana la filayaa in usbuucyada soo socda uu si toos ah ugu soo biiro kooxda ka dhisan Old Trafford. maalmihii u dambeeyay waxaa jira dalhayn la xiriirta in heshiiska Amorim uu shaki weyn ku xiriirsan yahay, laakiin arrintan ayaa maanta soo dhammaystirtay kadib markii labada dhinac ay heshiis ay ka gaareen inuu Amorim uu ku biiro kooxda Manchester United. ciyaaryahanka reer Sweden ee Victor Gyökeres ee kooxda Sporting ayaa lagu soo waramayaa in uu ka tegitaanka Amorim ee kooxda Sporting uu walaac weyn ku abuurtay, isla markaasina la sheegay inuusan ku faraxsanayn sii joogitaanka kooxdan. waxaana suuragal ah la leeyahay inuu kooxdan tababarihiisa uu kula biiro kooxda Manchester United. Gyökeres ayaa waxaa si weyn loola xiriirinayay kooxda Arsenal oo si weyn u daba taagneed tan iyo xagaagii hore. ciyaaryahanka Jamal Musiala ee kooxda Bayern Munich ayaa ka dhawaajiyay inuu ku faraxsan yahay sii joogitaanka garoonka Arena. 22 jirkan ayaa si weyn la sheegay in loola xiriirinayay in xagayga soo socda uu ka dhaqaaqi doono kooxdan ka dhisan dalka Jarmalka, waxaana si weyn loola xiriirinayay kooxda Manchester City, laakiin maanta ayuu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu sii joogo Arena, waxaana taasi ay suuragal ka dhigi kartaa in kooxda Bayern Munich ay heshiiska u sii kordhiso si ay Arena uga sii hayaan. 25 jirka ka soo jeeda dalkaasi Egypt ee kooxda Frankfurt ninka la yiraahdo Omar Marmoush ayaa si weyn waxaa diiradda ugu saaran tahay kooxda Liverpool, waxaana wararku ay sheegayaan in Liverpool ay dalab ka gudbisay 25 jirkan iyadoo sheegtay in Frankfurt ka doonayso inay bisha January ay xidigani kala soo wareegaan. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay la xiriirtay kooxda Wolves iyadoo ka doonaysa 23 jirka ka soo jeeda dalka Algeria ee dhinaca bidix ka ciyaara ninka la yiraahdo Riyad Nouri, waxaana la sheegay in Nouri uu si weyn u soo jiitay kooxdan ka dhisan Old Trafford. wajiro hadal oo dhanka Wolves ka soo baxay, laakiin Man United waxa ay tartan kala kulmaysaa kooxda Tottenham. tababarihii hore ee kooxda Al-Ittifaq ee Steven Gerrard ayaa lagu soo waramayaa in shaqadii laga eriyay kadib markii kooxdu ay ku bilaabatay qaab ciyaareed liita, waxaana la sheegay in gebi ahaanba ay kooxdan reer Sacuudi Carabiya ay iska eriyeen. shirkadda laga leeyahay dalka Sacuudi Carabiya ayaa lagu soo waramayaa in ay maamulka kooxda Crystal Palace ay u soo gudbisay dalab ay ku doonayso in ay maalgashi ku sameystaan 45%, waxaana la sheegay in arrintaasi haatan ay bilaawday wadahadal ay kooxdan Crystal Palace ay shirkadaasi doonayso in ay kula wareegto, sida uu leeyahay wargeyska The Mail. kooxda Aston Villa ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadal ay la bilowday ciyaaryahanka Morgan Rogers. 22 jirkan ay doonaysaa inay heshiiska ay u kordhiso, waxaana la sheegay in haatan ay labada dhinac ay isaga soo dhawaadeen si ay xidigan Fliberg loogu sii hayo. kooxda Real Madrid waxaa lagu soo waramayaa inay si weyn u doonayso ciyaaryahanka reer Argentina ee qadka dhexe ee kooxda Chelsea ninka la yiraahdo Enzo Fernandez ay ku doonaysaa lacag 84 milyan oo euro, waxaana wararku ay sheegayaan inay kooxda Chelsea weli arrintaasi aysan ka hadal. kooxda Barcelona ayaa waxa ay la socotaa xaaladda Rafael Leo oo ay doonayso in kooxda AC Milan ay ka soo qaadato, waxaana la sheegay in qadka taleefanka ay wakiilkiisa kula xiriireen iyagoo doonaya in 25 jirkan ay keenan garoonka Camp Nou. ma jiro hadal oo kooxda AC Milan ilaa imiga ka soo baxay, laakiin Barcelona ayaa si weyn ula socota xaaladda Rafael Leo. kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay doonayso difaaca kooxda Bournemouth ninka la yiraahdo Milios, waxaa la sheegay in xidigani reer Hungary ay u arkaan inuu noqon karo nin si weyn uga soo bixi kara dhinaca difaaca bidix, waxaana la sheegay in tababare Oswald uu arko ciyaaryahankan mid kaalin weyn ka qaadan kara in uu booskaasi u daboolo. Atletico Bilbao waxaa la sheegay inay iminka ay wadahadal ay ku doonayaan inay heshiiska ay ugu kordhiyaan 22 jirka reer Spain Nico Williams oo si weyn loola xiriirinayo kooxda Barcelona. Williams ayaa la sheegay inuu weli uu ka biyadiidayo inuu go'aan rasmi ah ka gaaro inuu heshiis cusub kooxdiisa Atletico Bilbao saxiixo. kooxda Cadiz ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku hayso isla markaasna ay qiimeynayso xaaladda difaaca reer Spanish ee kooxda Tottenham Sergio Reguilon, waxaana 27 jirkan ay u arkaan inay ka faa'iideysan karaan heshiiska uu kooxda kula joogo uu ka harsan yahay hal sano oo kaliya, waxaana suuragal ah sida Cadiz la leeyahay
inay heshiis ay la gaaraan maadaama aysan muuqan dhaqdhaqaaq ay Tottenham doonayso inay heshiiska u kordhiso. Good he is right now, and at 17 years old to win the Tababare Mikel Arteta ayaa si weyn u ammaanay ciyaaryahanka da'da yar ee Ethan Nwaneri waxa uu sheegay inuu yahay xiddig mustaqbal leh waxa uuna xusay inuu qaab ciyaareed cajiib ah ku jiro sidoo kalena uu u muuqanayo mid horumar ka sameynaya xirfadiisa. Waxa uu sheegay tababaraha reer Spain in ciyaaryahankan uu fursad weyn ay siinayso kooxda isla markaasna ay ku dadaali doonto inay sii dhiirigeliyaan isagoo sheegay inuu sameeyay horumar la taaban karo. He's completely right in that he doesn't exactly know what it should. Tababaraha kooxda Liverpool ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo inay heshiiska ay kooxdu u kordhiso difaacooda Van Dijk oo la sheegayo in heshiiska uu kooxda kula joogo hal sano oo kaliya ka harsan yahay. Waxa uu sheegay inay haatan ay socdaan doodo la xiriira si ay u sii hayn lahaayeen maadaama sida uu sheegay uu ku jiro qaab ciyaareed cajiib ah. Waxaana sheegay tababaruhu inuu haatan ku faraxsan yahay bandhigiisa.